السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal waa anigii soo noqonaya waxaan rabaa inaan halkan walaashay Soomaaliyeed ay su'aal ugu soo weydiisay inaan uga jawaabo oo ay iga weydiisay xulbada ka waran baytri hadaan isticmaalo yani si sahal cunuga ku dhalayaa yani soo bixitaankiisa ka hadlaysay abaayaday Soomaaliyeed horta waan ka cudur daaranayaa xulbad daawo inay tahay waan maqlay laakiin inay daawo u tahay cunuga iyo inuu soo bixitaankiisu sahlanaado jawaab kaama siin karo balse waxaan kugu caawinayaa yani si sahla ama xoogaa dilaaciisu u safar badnaan doonin inaad cunugaaga ku dhali doontid maxaa sameyn kartaa si aadan isku goosanin ama aadan maaragtay dilaac gudaha ku yimaada kanaalkii cunuga uu soo mariyay ama dibadaba ku yimaada si uu u yaraado ama aysan u dhicinin maxaa sameyn kartaa abaayaday Soomaaliyeed aniga xoogaa yartaan iska dadaalo waxaan ku sheegayaa saliido aan horeyna u soo qaatay saliidahaas at least waxay u fiican yihiin circulationka meesha masaajeyntaas xoogaa maaragtay inay ku caawin doonto saliidan almond oil waxaad samaysaa intaadan dhalin aadan maaragtay bilahaagu dhow yihiin waxaad samaysaa marso gudaha hoose farjiga dhexdiisa ku soo masaajeyso xataa saliid saytuun ayadana ku soo masaajeyso ayadana isticmaal saliid saytuun waxay u fiican tahay hadda ay daawanaysiin gabdhaha Soomaaliyeedow haddii hoosta ay ku qalasho mararka qaarkood ama uur lahow ama uur halahaanin mararka qaarkood waxaa nagu yimaada qallayl waxa la yiraahdo ostriyen oo yaraada dhaqitaanka faraha badan ee aan dhaqno markii aan istijoonayno waa sidayna yiraahdeen cadaanka dhaqitaanka tirada badan inaan dhaqno muslimnimadeena ku jirta balse waxaan u dhaqnaa si xad dhaaf ah aniga kow aan ka ahay maanta dhin biyaha lagu wadayaa biyo kulul lagu wadayaa biyo kulul meeshii hadhowto way qalajinaysaa yani hadhowto dheecaankii uu soo deyn lahaa farjiga uu yaraana qaleylkaas markay ku noqoto ama sonkortoo nagu badan mararka qaarkood sonkorteenu macaankeenu hadduu badan yahay cuncunuu ku keenaa farjiga qaleylka badan cuncunuu keenaa qaleylka aad buu ugu fiican yahay saliid saytuunta olive oilka aad buu ugu fiican yahay qaleylkaas mar walba oo aad qaleyl dareento aad cuncun dareento dhab isku sii gudaha dhan iyo inta ku cuncunaysa soo marso inta cuncunka dareentid gudaha shisha hadaa marisid xataa haba yaraatee wax dhiba ma lahan marka labadan saliidood waxaad u marsanaysaa isku diyaarinaysid in uu cunugu si macnihii fiican uu kaaga soo baxo maadaama meeshii saliida ay leedahay marka waxaad samaysaa umulisadaada ama la hadal ama warqad u qoro warqad aad leedahay waxyaabahaas in la ii sameeyaan jeclahay hadday gabadha Soomaaliya joogto iyo hadday dibadaha joogtaba waxaad leedahay saliidan almond oil waxaan rabaa inaad ii mariso gudaha marka cunugu iga soo baxayo cunugu uu maaragtay kanaalkii uu soo mari lahaa soo maray kanaalka marka ku leeyahay waa markii uu ka soo baxo ilma galeenkii oo yani markaas ilma galeenkii afkiisii ay 10 cm furmaan oo cunugu uu soo gudbo meeshaas uu soo marayo yani farjigeena inta iyadu gacanteeda markaas gaarto markuu cunuga ka soo baxayo ha ku marmariso saliida si cunuga madaxiisii uu si sahla oo sabiibaxa oo meesha uga soo baxo ii maridhe gacanta iigu maridhe gacantaas ay ku marinayso naagta minka xataa active buu ka dhigayaa in cunugu nabarro badan buu keenayaa si cunugu uu soo baxo marka ka codso in ay saliidan ku marmariso haddii awoodo haddii adiga aad gacantaada kaga waxayn kartidna waad marsan kartaa laakiin wiigaga ka horeeya intaadan dhalin sida maaragtay wiiga ugu horeeya wiiga ugu dambeeya iyo labada wiiga ugu dambeeya intaadan dhalin sagaalkaaga markuu dhamaado adiga laftigaaga
iyo maxaan ku dhahday xaajigaagaba ha kuu marmariyo waxba dhiba ma lahan in la isku mariyo wax ama gabadhu iyada ay gacanteeda ku marsato ay ku soo masaajaysato gudaha maxaan ku dhahayo farjigeeda waxba problem haba yaraatee ma lahan ama cid kale kuugu masaajayso xataa iyadana saan idinkugu sheegay olive oilshana aad bay u fiican tahay marka mid kalaa jirto oo iyadana kuu sahlayso in dilaac kugu yimaado ama aa isgoosatid umulisadaada waxaad ka dalbataa cunugu markii uu soo baxayo ee uu yimaado farjigaaga ee madaxiisii uu soo bixi rabo ee diyaar uu yahay madaxiisii uu ku dhago geesaha farjigaaga gacanta ha kuugu riixin cunuga madaxiisa caloosha dhankeeda ayay si tartiiba ay ugu riixi caloosha waxaad moodaa inay ku celinayso sababtay waxay u samaynaysaa wax weeye ixda ad adiga maadaama gabadhii farjigeedii uu aad moodid in dab lagu shiday waxaad dareemaysaa in dab lagu shiday oo lagu kala jiday oo lagu kala gooyey qiiq iyo madaxaaga ka kacayo markaas haddii ixdaas hal mar aad iska soo riix aad isleedahay hal mar banaanka ha kaa yimaado ayay ka hortegaysaa cunugii madaxiisii ayay juustaynaysaa oo hadba si tartiiba suu kaaga soo bixi lahaa ayay cunuga madaxiisii u qabaneen si aadan hoos isku goosan ama isdilaac badan uu gudaha ku imaanin ayay madaxii juustaynaysaa si tartiib uu u soo baxo maadaama annagii ay nagu jirto hal mar iska soo riix ilmihii iska soo tuur micnihii waxaad is leedahay qofka xaasisana ma ilmaha lagaa soo qabto marmarka qaarkood cunugii oon kow iyo kala bar joogin ayay gabadha waxay rabtaa in cunugii laga soo qabto sidaa darteed micnihii way kuu juustaynaysaa madaxiisii oo mashadoonyo ah ayay saa gacanta ugu celinaysaa si tartiib oo adigana aadan isku dilaacsanin cunugiina uu si fiican kaaga soo baxo ayay kuu qabaneen ka codso in ay kuu juustayso madaxa cunuga si aadan isdilaacsan marka waxaan rajaynayaa in aad ka heli doontid warbixintayda inaad ka heli doontaan dhammaantiin especially gabadha walaashaya xulbadda wax iga soo weydiisay abaayoy xulbadaas laga yaabo inuu cunuga dhibaato ku keeno maadaama aan la baarin aan micnihii baaritaan badan la marinin laakiin saliidahan guriga noo yaala maaragtay caadiga ah uu aad bay ugu fiican yihiin sii marso ayaama ka hor sii marso mar walba meesha kusii masaajayso hadhowna umulisadaadana ka dalbo in ay maaragtay kuugu masaajayso wax ceeba haba yaraatee ma lahan wax dhiba haba yaraatee ma lahan haddii la doono maaragtay ii qabadhe madaxa saan kuugu sheegayay saana isku goosan waxaan rajaynayaa inay idin anfici doonto waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh